السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ليال إلهي سبحانه وتعالى هيدي بركة يمالك استوجوكتان وهرين وحين ود أكسرنا والله ليال بشي رمضان إن أي هالمالين أما لا مالين أو كري أي كهالدي وحين اسكو تهنيدين إن اسكو بشارين إن بشهر رمضان فضلك بضله النبي قالوا عليه الصلاة والسلام وحي لحديث كأبي هريرة أسورين أيوه أتاكم رمضان وحائدين تمد بشي رمضان شهر مبارك وبالبركة يسمى النبي عليه الصلاة والسلام فرض الله عز وجل عليكم صيامه وحا إلهي سبحانه وتعالى إذن كفر ليالي بشهر رمضان إنها تصومتان وحا الله سبحانه وتعالى أوليه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وركو إيمانك لغه ليو waxaa idinku faral yeelay soom baa idinku faral yeelay bisha Ramadaan sidii loogu faral yeelay umadihii idinka horeeyayba waxaad mudan tihiin inaad Allah subhanahu wa ta'ala aad ka cabsataan xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala inagu faral yeelay bisha Ramadaan inaynu soonno arrinka labaad wuxuu nabiga kaleey salaatu wasalaam uu tilmaamay fadaaisha bisha Ramadaan ay leedahay wuxuu nabiga kaleey salaatu wasalaam tuftahu fihi abwaabus samaa waxaa la furaa bisha Ramadaan albaabada samada oo dhan riwaayada kale waxay sheegaysaa tuftahu abwaabul janna waxaa la furaa albaabada jannada oo dhan ayaa la furaa sidoo kale nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri wa tughallaqu abwaabul jahiim waxaa la xiraa albaabada naarta jahiima ayaa la xiraa fadligeeda ayay ka mid tahay wuxuu nabigu kaleey salaatu wasalaam wa tughallu maradatu shayaatiin waxaa la xidhiidhaa shayaatiinta kuwooda madaxa adag la ayaa la xidhiidhaa wuxuu nabigu kaleey salaatu wasalaam uu tilmaamay oo bisha Ramadaan fadligeeda ka mid ah in ay ku jirto habeen ka khayr badan kun habeen laylatun khayrun min alf shahr ilaahi subhanahu wa ta'ala isaguna quraanka inagu tilmaamay waa habeen ka khayr badan kun habeen waxa ka mid ah walaalahay bisha Ramadaan fadligeeda waxa ka mid ah إن أي تاي بشي قرآن كإلهي لسودجي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلهي سبحانه وتعالى يسوون قرآن كسنة وشاقين ولا ليال وبالمضن إن نكفر احنا سوقرتان كذا إلهي سبحانه وتعالى وحين كبرينا إنه نقرنقه كوقته oo ka soo baxa oo ka faa'iideysta bisha Ramadaan fadliga ay leedahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaynu weydiisanaa inuu naga dhigo Rabbi subhanahu wa ta'ala kuwa bisha Ramadaan gudaheeda naarta laga xoreynayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala a'maasheena inuu aqbalo ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiisanayna. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.